magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxaa maanta gaaray wafdi ka socda beesha caalamka kuwaasi oo hogaaminaya wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya Ambassador James Swan iyadoona halkaasi ay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland. wafdigan oo ay qayb ka yihiin xubno uu ka mid yahay safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa maanta waxay ugu hortahay markii ugu horeysay ee tagaan magaalada Kismaayo tan markii dib loo doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland. doorashadaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa horey u qaadacday iyaduna ay sheegtay in gabi ahaanba aysan waxba ka jirin isla markaana wasaaradda arrimaha gudaha ay soo saartay habraac doorasho oo Jubbaland ay ugu talagashay balse aan la qaadan. wafdiga wakiilka qaramada midoobay ee gaaray magaalada Kismaayo ayaa waxay halkaasi kulamo kula leeyihiin madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyadoona lagu qancinayo sidii doorasho labaad looga qaban lahaa deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. ammaanka guud ee magaalada Kismaayo ayaa aad loo adkeeyay waxaana magaalada Kismaayo ay maanta ka duwan tahay maalmihii hore ee la soo dhaafay iyadoona si weyn looga dareemayo wafdigan gaaray halkaasi ee magaalada Kismaayo. si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay ee Jubbaland fadlan subscribe saar Hilwa Official Channel.